حمودن شعبكي كنت ذي كحما هيسقب صدايق كنت واجب كوضا ما حد قارا وحمودن شعبكي كنت ذي كحما هيسقب صدايق كنت واجب كوضا وكوكو ياي قبل ذا وكويو كمغسي وكوكو ياي قبل ذا وكويو كمغسي قبل ذا وكويو كمغسي وكوكو 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 قبل ذا وكويو كمغسي عدا يديك كوسي وربنا حيكو قرقلو أنا ويقا كنت حيث تتكود حيث جيجيك شرفتني إن انكرشد عدا يديك كوسي وربنا حيكو قرقلو xafladu dhammaan maanta waxay ku saabsan tahay shaacinta xildhibaankeena xildhibaan waxaan leenahay dhammaan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarta xaafadda Sheekh Cusmaan waxaan diyaar kula nahay taageeraha ah inaad noo tahay xildhibaanka xaafadda xildhibaan ma metelaysid reer kaliya maanta waxaad metelaysaa dhammaan bulshooyinka xaafadda Sheekh Cusmaan waxay ku doorteen xildhibaanka xaafadda waxaan ku wadaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarta xaafadda Sheekh Cusmaan inay diyaar ku leeyihiin codkooga maskaxdooda iyo maalkooga aad ugu faraxsanahay mar labaad inaan joogo maaragtay shaacinta musharaxa Maxamed Habiib oo xaafaddu leedahay anigoo ku hadlaya magaca qurba joogta xaafadda Maxamed Habiib waa wiil aan muddo badan sugaynay oo waan ku faraxsanahay waanan ku garab joognaa musharaxnimadiisa annagu haddii aan nahay reer Sheekh Cusmaan dad waxaan nahay rag iyo dumar isku duuban oo iyo hooba isla garab jooga waxaan doonaynaa maxay haydaanay xildhibaanka maanta inaan soo saarno iyo aan ugu tala jirnaa haddii Ilaahay yiraahdo annagoo reer Sheekh Cusmaan oo hooyada maxay haydaanay reer Sheekh Cusmaan matalayna inankani
maanta xil ma qaadin horay buu xilka u qaaday ilaa yaraantiisii dhallinyarnimadii uu isku wada keenay rag iyo dumar haween uqaal inamo intaba dhammaanteed dhallinyaradeeda haweenkayga odayadeeda culimaauddiinkayga qurbajoogteeda waad salaamantiin dhammaantiin xaasle united ma ismaqallaa xaasle united ma ismaqallaa anigu waxaan ahay guddoomiyaha xisbiga waddani ee gobolka awdal waxaad igu soo wareejiseen xildhibaan maxamed abiib maxamed soo maaha codkana idinkaa la garab jooga soo maaha anoo ka wakiila xisbiga waan iga guddoonnay intaa haddaan kaga tegataa waxa weeyaan taasi waa mahadsantihiin waxaad tihiin xaafaddii koowaad ee si xaafadeed wax u soo doorata baad tihiin waxaan idiin sheegayaa xanuunnada ka jira doorashooyinka dhexdeeda baan in idinka fahansiinaya inaad degta raarixsaan weeyaan baritooliya waxaa idiin iman doona odayaal yaacaya iyagoo qabyaalad wadoo qoloqolo idiin kala saaraya oo danta xaafadda xaaslaydaan ka hadlayn waan ogahay xisbiga waddani halkan markii noogu dambaysay ee kaambeynka lagu jiray garoonkii aannu xaadhnay ee dawladdu tiri waannu dhisaynaa miyaa la dhisay diriinnaydkii dariiqa maanta biyaha laamidaa yar ee halka layada miyaa kan laga leexiyey maanta townbaneenka xaafadda waad arkaysaan waa xaafadda ugu bablayshanka badan leh waa xaafadda dadka ugu aqoonta badan leh ka soo baxaan waa xaafadda ay ka soo baxeen fannaaniin heer qaran ilaa ummadda afka soomaaliga ku hadashaay waxa weeyaan waxa nasiib darro ah in laydin baylihiyo oo codkiinna aad ku weydaan wax badan baa nasiib darro ah waxaa laydiin qaybin doonaa qoloqolo xildhibaanka aad nagu soo wareejiseen waxaa laydiin odhan doonaa isku qole ma tiidina laakiinse xaafadda xaasleyda united waan ku kalsoonnahay inay diidi doonaan waxaan idiin sheegaynaa maanta waxaad marteen hannaankii dimuqraadiyadda inaad xaafad degmo wax ku doorataan haddaannu nahay xisbiga waddani waxaannu aaminsannahay talada degmada iyo ta dalkaba marka lagu guulaysto magaaladeennu degmooyin bay u qaybsantaa sida magaalada hargeysoo kale waa nasiib darra in xaafad laynagu tilmaamo degmada xaasleydaa la yidhahda halkan maanta laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka guddoonnay xisbi ahaan annagu macaarad baan nahay laakiin dadka wax qabanaya inaannu soo saarro oon safka hore soo dhigno waa waxaan ballan qaadayna xisbigu waa wax idinkana codkiisu uu idin saaran yahay ayaan laydinkala furfurin ayaana cid kale idiin imanin qofkii innigu aad gacantiisna ku sideen ee aad maanta xisbiga ku soo wareejiseen haddaad berri kaga leexataan ood qabyaalad iyo qurun kaga leexataan waa nasiib darre xaasleyda u soo hoytay bay noqon doontaan aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa aad iyo aad baan idigu mahadinaa wixii baahi meeshaa ka jira waa ninka inii hadli doona waa ninka baahida dawladda hoose maanta idiin qaabilsanaan doona waa ninka waxaad ka doonaysaan aad sii maranaysaan ayaan berri laydin dulkeenin mid aydaan garanayn oo aan xaafaddana ka tirsanayn dii koowaad ee aan ka qayb galo ee lagu shaacinayo xildhibaanno sababta aan halkan u imi waxa weeye walaalkay maxamed abiib oonu soo wada shaqaynaynay haddaan nahay heer gobol oo xisbigaan ka soo wada shaqaynay waxaan ku aqaannaa nin karti badan nin waxqabad badan nin xaafad weynta sheekh cismaan ee isagoo guddoomiyuhu sheegay degmada sheekh cismaan wax badan u qabtay magaalada wax badan u qabtay nin dhallinyaroo han siyaasadeed soo galay aad iyo aad baan ugu soo dhowaynayaa inuu saaxadda siyaasadda markii hore uu ku jiray inuu matalaad ku yeesho haddaan nahay xisbiga waddani sidaa uu guddoomiyuhu sheegay xaafadweynta sheekh cismaan waan ka guddoonnay guddoomiye maxamed abiib inuu noqdo xildhibaanka xaafaddan waxaanan hubaa inuu wax badan u tari doono insha allahu tacaala degmada iyo xaafaddaba aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantihiin waa xilli gaaban kolley maqhribkiina uu soo dhow yahay waxaan idin leenahay sidaa uu guddoomiyuhu idiin sheegay dad baa idiin iman doona idin qaybin doona reer hebel idinku sheegi doona qof iyo reer baa laydin qaybin doonaa sida aad maanta ugu midaysantihiin maxamed abiib inaad ugu midaysnaataan inaad maalinta codka la siinaya aad codka siisaan inaad maalin walba garab joogsataan inaad xaafaddiinna ka dhigtaan xaafadda ugu qiimaha badan degmadaan rajaynayna insha allahu tacaala waxaan salaamayaa dadweynaha xaafadda xaafayda oo wakhtigoogii fiicnaa noo soo uray waxaa kaloo iyaguna aad u salaamayaa guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee heer qaran iyo guddoomiyaha gobolka maxamed aadan suldaan oona aad iyo aad ugu mahad celinaya wakhtigii fiicanay noo soo hureen waxaan leeyahay xaafadda innagu waan isku dambaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wakhtiga fiicanay noo soo hurteen
waxaan kaloon u mahadcelinaynaa guddoomiyaha maxamed aadan suldaan oo maanta inoo magacaabay degmo markii horeba inaan ogeynaan nahay degmo laakiin waxaa hoos inoo dhigay waa dadyoga kale guddoomiyuhuna aad buu ugu mahadsan yahay degmadu inoo magacaabay innaga ka xaafataan xaasli ahaanna waan isku dambayn doonnaa aad iyo aad baan iiga mahadcelinaya wakhtiga fiican ad ii soo horteen